soo dhawaada saaxiibayaal mar kale bilowga filimka wiil ayaa ku jiro qol bir qolkan waxaa ku yaala albaab waxaana dhinaca kale albaabka ku yaala qolal kale oo maran bir ah wiilkan wuxuu ku boodiyay qolka kale isigoo rajeynaya inuu helo wado ama meesha uga baxo laakiin silfantiir ayaa kasoo baxay darbiga qolkaas mid kamid wuxuu dhaxmaray jirkiisii wiilkii wuxuu ku dhintaa meeshaas taasoo muujinaysa in meel ay tahay ku dilaa ah koobaha dambe waxaana la tusay saddex qof aan xasuusan sidii meeshan ku yimaadeen xitaa wax albaab xataa ma watan ka hor intiisa fahmay xaaladooda nin ayaa kaba ku tuuray qolkooda markii ogaadeen in qolka ammaan yahay wiil yara Ruushi u boodiyay qolka daqiiqada kadib gabar ayaa idin ku biirayso qolkaas Ruushi markuu furay albaabka kor ku yaala si uu uga baxo qolkaas meedkii wiilkii hor dhintay ayaa kasoo dhacay albaabkaas taasoo dadka dhan ka yaabisay wiil kale ayaa qorsheynay inuu mar albaabada kale laakiin Ruushi joojina wuxuuna leeyahay in isku hubin qolkaas intaanan galin in ammaan yihiin kale wuxuuna ku tuuray kabihiisii uu hubiyo qolka markii kabixi galo qolka dab ayaa ka kacaya waxaan la ogaaday in qaar kamid qolalka ay yihiin dabin khatar oo ka shaqeynaya dareemayaal kala duwan hadii si toos u gali lahayn qolkaas way dhimin lahaayeen hadda waxay bilaabeen in kabahoodii ku tuuraan qolkaas ay u hubiyaan qol kale waxay keeneen duqo hore taajir ah lagu xiray meesha muddo dheer waxayna moodeen in dadkaas u yimaadeen si u baabiyaan laakiin wiya markuu ogaaday in ay kan meel lamad ay ku xiriir yihiin dhamaan waxay rabaan inay ka baxaan kubaddan sida darteed way saacabanay hore u soconayaan inta ay socdeen waxay arkeen saxan qorshihiisu yahay saddex tir u dhexeeya laba qol maysan fahmicnaa tiras wiil hadda ku tuuray kabihiisa qol kale wuxuuna ogaanayaa inuusan dabin ku jirin dhammaantood waxay u boodiyeen qolkaas laakiin albaabkii qolka hore kasoo baxay si toos isku xirmaya isla markiiba leerarkii iyo adam waxaana marwaxda fiiqan bilaabay inuu soo dhaqaaqaan daqiiqada kadib way dhimin lahaayeen laakiin Ruushi wuxuu muujinayaa caqli badan wuxuuna furaya albaabka hoose dhammaantood waxay badbaadiyaan waxayna u gudbayaan qolka kale ilaahay baa mahad iskale inay ka badbaadeen laakiin ciyaartii kaba ku tuurista way fashilantay hadda waxay u baahnayeen qorshe cusub markaas jiheeraya arkay qorka tirada xisaabaha ku qoran wuxuuna keenay fikrad in dhammaan qolalka tiradoodu yahay nambar been marka laga reebo mid leh nambar asal ah waxaa laga yaabaa in qolkaas dabin lahayn wiil ayaa naftiisii khatar geli ku boodo qolkaas uu hubiyo aragtida ilaahay baa mahad iskale aragtida waxay sax dabin meeshaas kama jirin iyagoo isticmaalay aragtidan waxay u gudbeen qolo kale mid laakiin safarkoodii weliba dhammaan meel ka baxsan qolka lama helin markaas waxay tagayeen qolkii ugu dambeeyay kaasoo dhammaan albaabadiisu leeyihiin tirooyin la been ah tani waxay u muuqataa in dhammaan qolkaas dabin leeyahay waxayna go'aansaday inay ku noqdaan qolka hore laakiin albaabkiisi rasmi isku xiray waxay jeeri ka codsanayeen markii xisaabay laakiin way fashilantay waxayna midna u hubiyeen qolka waxayna helayeen qol la dareemo dhageysi ah markaas waxay go'aansadeen inay si aamusan u gudbaan qolkii dambe laakiin markii wiilkii ugu dambeeyay uu marayay qolkaasi si uu gudbo qolka kale kabihiisii si qaldan ugu dhacay qolka la dareenka codka sababta codka leesarka ayaa kaclugtiisina way dhaawacantay mar kale waxay isticmaaleen aragtidii tirooyinka asalka si uu gudbo qolka laakiin way nijabeen waa isla qolka safarkeedii ka bilaab waxayna dareemayaan in meel isku wareegay ku jiraan jiheer ayaa xisaab kala sameeyay isigoo fikrad kale ka fikiraya wuxuuna sheegay in meesha ay joogaan ay tahay koobe maahan keli kuwa balse wuxuu isku rogrogaa sidii rubiskoobka taasoo sababta dadka uga bixi kara meesha Ruushi waaliya markuu taas maqal wuxuu leeyahay tani ma dhici karto waqtiga ma sugaayo wuxuu leeyahay xaskiigii isugay waxaan balan qaad inaan ku laabanayo wuxuu ku dhiirigeliyay dadka inay u gudbaan qolo kale markaas iyo koobkiisii xawil u dhaqaaqay taasina waxay keentay in Ruushi asxaabtiisii u dhacan qol dabin ah halkaasoo leesar badan ku wareegsanaa laakiin si mucjisay uga baxsadeen Ruushi naftiisii haligdiis u badbaadiyay asxaabtiisii wuxuuna galay qolka khatarka ah wuxuuna badbaadiyay labadoodii wuxuuna u diray qol amaan laakiin nasiib dar isagu wuxuu ku dhintay wareeg leesarka dhammaan waxay ka marugsan dhimashiisa saacado badan kadib waxay murugada Ruushi iska saareen markaas iyo markale is oroseen si uga baxaa meesha jihor isigoo xisaab soo sameynaya wuxuu sheegay in tirada u maleynay ay yihiin labeen asal iyo ahba ay dhammaantood muujinayaan cabirka kuubiya yar ay ku jiraan kuubka weyn ee ku yeel dhibidka XY iyo Z markuu xisaab balan sameeyay wuxuu helay natiijada ugu dambeysay hanadii uu ka codsaday dhinaca didibka Y ay gaari doonaan meel ammaan kadib markii gudbi doonaan qolalka kala gaari doona kuubka weyn meeshaas oo ka bixi karaan wuxuu noqon karaan markay raaceen asxaabtiisii si u sameeyeen waxay yimaadeen qol kale halkaasi go'aansanay waxyaana nastaan odaygii wuxuu yiri waxaan u maleyn internet ciqaabtii dambiyada aan dunida ka galay waxa suurtagal in weliga aan ka bixi karin meeshan waxa khiyaanada badan waan ciqaabtii tan markuu hadalkaas leeyahay bari adag ka soo dhacay xagga sare kubadii barteeda ayaa loo qayb u kala jabtaa kooxdiina kala qaybsan dadkii waxay go'aansanay si gooni ula socdaan odaygiisu xisaabta ma yaqaana laakiin ma aysan quusan jihor kabadii saaxiibkoodii kale hor u socday iyaga xisaab sameynaya waxay heleen shaashada ka tus saaxiibka jihor xasuuso badan oo hore dunidu way dulmas walaalkiisii inuu isdilay laakiin muusan badbaadin nolosha walaalkiisii markuu tan argay murugay ayaa la weysay wuxuuna bilaabay inuu ooyo jihor wiilkii isna wuxuu la yeeshay sheekada wiilka dhimanaya maxaa yaal adduunka ayaa isigana sidaas oo kale u dhaqmay dhanka kale Shinji odagii waxay sii baday inay kaba ku tuuraan qolka si uu gudbaan odagii wuxuu badan Shinji ku jira hadal xun wuxuu yar dhalinyarada waa cashuur badin taasoo Shinji ka xanaajisay Shinji si uu caraq buuxda wuxuu uusan ka fikirin wuxuu
xirnaa madaxdii albaabka wuxuuna bilaabay si xog ugu xiray maradan taasoo sababtay dhimashada odayga. Markale muuqaalku wuxuu u guuray kooxda halkaasoo Jeher ku eedeena in wiilkan fuu yahay maxaa yeelay muusamad baan walaalkiisa man u difaacin. Jeher wuxuu ganay jab wuxuuna go'aansan noloshiisa soo afjaro wuxuuna go'aansan albaabka furu ku boodo qolka dabinka ah. laakiin markan wiilka la badbaadiy Jeher ugu taqlus dambigiisii hadda waxay hor u socdaan marka ay furaan albaabka ku yaala dhididka waay ugu dambeyn waxay gaareen wada ka bixaysa kubadda laakiin banaanka aad buu u madow yahay waxayna arkayaan qolka kubadda u shaqeynaysa sida wiish waxayna u maleeyaan in wiishka uu qaaday saldhigga hoose markaas xisaab kala sameynaysa u gaaran wiishka kubadda ah iyagoo xisaabi ku socdo waxay marka loo kulmeen Shinji ninkii dil odayga markii wax ka weydiiyay odaygu wuxuu ku jiro inuu dhinto markuu u galo qolka dabinka leh si kasta way socdaan laakiin Shinji ugu dambeyn si khasbi u geeyo qolka dabinka ah. Shinji ma cad wax maskaxdiisa ka socda balse waxaa la mooday inuu doonayo inuu dilo dadka oo dhan wuxuu qolkii ku yiraahdaa aniga adigii dilay markaas Jeher iyo kabadhi cabsi darteed wuxuu u gudbay qolka kale. Shinji wuxuu si xun u garaacay saaxiibkoodii kale wiilka ayaa weydiiyay maxaa ay u garaacaysaa. Shinji wuxuu geystay inuu si iska aaray wuxuu adduunka ku geystay wuxuu ka shaqeyn jiray dukaanka xaafadda dhamaanta keelkaas imaan jiray xitaa milkiilaha dukaanka ku xukumi jiray taasi waxay qalbigiisa ku awaatay ceebin u qabo aadanaha tan waa sababta uusan u rabin naftiisa badbaadiyo mana doono inuu cid kale badbaadiyo. Shinji wuxuu inuu wiilkaas u dilay isaga ceejinaya laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay wuxuu xusuustay walaalkiisa oo dhintay oo badbaadin kari waayay. hadda wiilku wuxuu isdhiirigelin wuxuu isku dayay inuu difaaco laakiin markuu dhiman la bir adeeg ka soo dhacay xagga sare oo garaacay Shinji isigana uu dhintay. Jeher iyo kabadhi waxay ka daaween dhacdan irida kale ee qolka wiilka Shinji ka badbaaday saxaabtiisa ka saaray qolkaas wuxuu naftiisa u hor badbaadadooda ugu dambeyntii kabadhi Jeher waxay gaareen wiilka kubadda ah laakiin Jeher wuxuu ku janaxdan iyo murugo asxaabtiisu dhan way ka dambeeyeen qaarna way dhinteen. gabadhii waxay si taageer waxayna ku tir eeg hortaada waxaa ka soo baxay aftiin taasi micnaheedu in Jeher ku bax kubadda cadaabta ahayd ugu dambeyntii wuxuu ka baxay meesha dirdirka leh. Jeher wuxuu jirtay gabadhii iyaduna waxay ku tiri soco noloshaada nool aniga halkan si joogi doona si aan dadka kale u helo halkaas ayaan la tusiyay wiilka Jeher oo keenay wiishka wili uu nool yahay laakiin sidan uu dhaawacay rajada wili maysan ka dhamaan wuxuuna rumaysan in maal uu ka bixi doono kubadda laakiin lama filaan ka sheekadeen kabadhi dib ugu laabatay u keento dadka kale ee taasir gabadhii abuurtay dambiga dhimashada kubaddan waxayna aragnay iyadoo indhaheedii ka daawanaysa dadka nool hadda waxay gaartay koox cusub iyagana ku xirnaa sidii ugu timi kooxda Jeher. filimkeena wuxuu ku dhamaanay iyadoo la muujinay muuqaalkaas halkaan nolosha gaartay aad iyo aad baa u maasan tahay haduu jinaak subscribe saaro haduu adiga subscribe ku waxaan ka codsinaa muuqaalka la noo saartay meel noo gaar aad iyo aad baa u maasan tahay.